dalada ururada aan dawliga ahayn ee Sonsaf ayaa maanta kulan laga gaadhay waxyaabaha inta badan dib u dhiga doorashooyinka Soomaaliland ku qabatay magaalada Hargeysa. Kulankan ayaa waxa goobjoog ka ah mas'uuliyiin ka socda xisbiyada qaranka, golayaasha guurtida iyo wakiilada daneeyaasha dimuqraadiyadda Soomaaliland, maamulka jaamacadaha dalka iyo xubno kale. Agaasimaha dalada Maxamed Ahmed Maxamuuda Barawani oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahiyay ujeedada kulankaasi. maanta doodan aad runtii taaban doontaa inaan aad u eegno maxaa sababa waayo runtii arrin u baahan in aad la isu dul taago maxaa sababa in doorashooyinka dib inooga dhacaan laga soo bilaabo 2002 markaynu bilownay nidaamka xisbiyada ee doorashada horeysa la galay ama constitution loo codeeyay 2001 ilaa imaka 15 sanadood waxa laga yaabaa 7 doorasho inay dib inooga dhaceen imakana qaar kale ay dib inooga dhaceen marka runtii ujeedada marka shirkan waxa weeyaan in qodobada laga doodo oo runtii si waaqic looga doodo oo aqoonyahanka faraha badan ee jaamacadaha ka soo casuunay iyo kuwa kale ee bulshada rayidka iyo dhamaanteen intellectuals isugu yimid inay ka doodaan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani, gudoomiyaha xisbiga UCIDE iyo gudoomiyaha labaad ee xisbiga kulmiye oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa yiri hadaan nahay xisbiga kulmiye oo la shaqeynayna komishanka qaranka aqoonyahanka talooyin badan baa laga qabaa doorashooyinkii inoo soo dhacay runtii doorashooyin aad iyo aad u wanaagsan bay ahaayeen marka loo eego intii doorasho inoo soo dhacday siday doonaan baa inoogu dhaceen ama haddii laga bilaabo 2002 iyo haddaynu ka soo bilowno 91kii ilaa iyo maanta waxaynu galay doorashooyin aad u badan doorashooyinka wax badan baynu ka faa'iideysanay midba miday ka dambeysay يعني laba shay oo culus baa ina wada saaran oo doorashadii aynu u baahanahay inagu soo foole inaan waqtigeedii ku qabano ilaa haddana anagu xisbi ahaan waxaanu diyaarunahay inaan waqtigeedii baanu diyaarunahay inaan waqtigeedii u diyaar garowno waxa sidoo kale runtii loojiga ah oo yani waxa weeye mas'uuliyadina faraysa abaaraha jira iyo duruufta jira in sidii looga qayb qaadan lahaa si aanay hadhow iyaduna u noqonin duruuf la yaahdo doorashada lagu kordhinaya war maanta inuu joognaayo wali doorashadii waqti inaga xigay abaaraha sidaynu uga qayb qaadan lahayn ee u badbaadin lahayn dadkeena xoolaheena u badbaadin lahayn iyadoo inaan target ka dhiganaynin in doorashada wax lagu yeelo dadkeena waa baabay xoolihii waa naga dhimanaya marka inaan dadkeena safar kaleeno nabadgelyo moojaane dilay maanta kuma hadne aynu ninkastoo aynu dadkeena u gurmano saaw sheegay xirsi aynu xooga saarno adduunka sheegno adduunka xitaa lama oga sharta waxaan tagay safiirka Turkiga bal clip buu yiri aan u diro Turkiga halaga saaro TV-da si fundraiser lagu sameyn lahaa marka halkaas xaajida maraysa xoolo dhimanayaan ninka 8,030 boo haray intaan bal ay sheegay galmudug isdaldalay ma ku neef u damaa u dhintay intaan dadka isdaldalin anu gurmana leeyahay tan dib inoogu dhigay insha Allah commission shaqadiisa inoo dhameeyo voter registration-ka waynu tashan doonaa is our election inaga iskala cid kale nala male sidoo kale gudoomiyaha hoggaanka dalada Sonsaf Aamina Faarax oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa ku dheeraatay muhiimadda uu kulankan u leeyahay dimuqraadiyadda Soomaaliland xubna ka socda qaran bixiyaasha Soomaaliland ka taageera dimuqraadiyadda oo iyaguna madashaasi ka hadlay ayaa xusay in dib u dhac ku yimaada doorashooyinka Soomaaliland ay sabab u noqoto in ay beesha caalamku dhabarka u soo jeediso Soomaaliland waxaana intaasi ku dareen in waqtigan beesha caalamka kala bar ay ka joogaan Soomaaliland isla markaana ay doonayaan in doorashooyinka ay waqtigooda loogu talagalay ku qabsoonto. When you look at the donor representation today, it is at least half of that. And what has happened with electoral delays in Somaliland, many of those donors have just fallen away. Kunaanadkeena gudoomiyaha gudida doorashooyinka Somaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in doorashadu ay waqtigeedii ku dhici doonto waxaanu yiri waxaan u diyaar garoobaynaa ama aan diyaar u nahay doorashada soo socota ee dhici doonta 28 March 2017 haddaba si loo guda galo waxa loo baahan yahay dhamaystirka waxaanu dhamaystirnay wajigii koowaad oo diiwaangelintii oo aynu ku guuleysanay waxaan ku jirnaa wajigii labaad ee codbixiyaasha oo daabicidii kaararka waxaanu diyaarinaynaa in aanu sabtida soo socota ay bilaabantaba in kaararkii la daawaco la jaadaranaye